الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku jirnaa duruustii barnaamij nuur العلم لتقوية هوية المسلم. waxaan bilownay kitaabkii labaad الأربعون النووية للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. درسigii labaad ayaan maanta gelaynaa in sha allah. waxaan soo qaadanay 3 xadiis. xadiidka afaraad ayuu darsigeenu ka bilaabanaya. الحديث الرابع xadiidka afaraad can abi cabdiraxmaan. abu cabdiraxmaan waxaa laga wariyey cabdillaahi bni mascuudin ahaa radia allaahu canhu, allaha ka raali noqde, qaala inuu yidhi xadahanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, waxaa noo sheekeeyey rasuulka ilaahay, wa huwa saadiqu almasduuq, wa huwa isaguna alsaadiqu waa mid runlow ah oo run sheega, almasduuqu runna loo sheego, isagoo run unbuu sheegaa nabigu sala allahu calayhi wasalam. waxa uu keenayaana waa run loo soo sheegay, been looma sheegin, oo waxyigu rabbulcaalamiin xaggii buu uga imaanaya. halkaa marka waxaa ku jirta warka la sheegi doono in lagugu boorinayo inaad aqbasho guddoonto, maxaa yeele qof aan been sheegayn, beenna loo sheegayn ayaa sheegay. wuxuu nabigu yidhi marka sala allahu calayhi wasalam, inna axadakum, axadkiin qofka idinka mid ah, qof walboo idinka mida weeyaane, yujmacu khalquhu, yujmacu waa la kulmiyaa, khalquhu abuuristiisa, fii badni ummihi hooyadiis caloosheeda gudaheeda ayaa lagu kulmiyaa, 40 yowman 40 maalmood, 40 maalmood oo manidii ama candhuuftii uu ahaanayo. ثuma yakuunu kadib wuxuu noqonayaa calaqatan xinjir midla daalika, intaasoo kale, 40kaasoo kale, 40kaasoo kale wuxuu noqonayaa xinjir, macnaa dhiig adag ayuu noqonaya, dhiig adag. ثuma yakuunu kadib wuxuu ahaanayaa mudqatan cad hiliba, midla daalika, intaasoo kale, 40 kale oo saddexaad ayuu noqonayaa cad hilib ah. ثuma yursalu اlmalaku, kadibna malag baa la soo dirayaa, allah ayaa soo diraya, fayanfuqu wuu afuufayaa, fiihi qofkaa caloosha ku jiray ayuu ku afuufayaa alruuxa, ruux. wa yu'maru waxaa la amrayaa malagga b4 kalimaatin, 4 kelimadood, 4 arrimood ayaa la amrayaa. bikatbi risqihi, risiqiisa inuu qoro, caruurkaa risqigiisa intuu nool yahay adduunka wixii u qoran ayaa uu qorayaa. wa ajalihi iyo ajashiisa, cimrigiisa inuu qoro intuu leegyahay, muddada uu noolaanayo. wa camalihi iyo camalkiisa, waxa uu yahay camal saalixa iyo camal sayi-a. wa shaqiyun, mid nasiib darsaday oo ahlu naara inuu yahay, aw saciidun, ama mid liibaanay oo ahlu janna inuu yahay. fawاladii laa ilaaha hayruhu, fawاladii allihii baan ku dhaartay, laa ilaaha hayruhu, macbuud xaq lagu caabuda aanu jirin oo isaga aan ahayne, inna axadakum, qofkiin, la yacmalu wuu samaynayaa bicamali ahli اljanna, ahlujannaha camalkoodii, xataa maa yakuunu, ilaa aysan ahaaneyn beynahu wa beynaha, isaga iyo jannada inta u dhaxaysa, ilaa diraacun, dhudhun ma ahane. fayasbiqu calayhi اlkitaab, kitaabkii baa ka hormaraya, fayacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli الnaar, ahlu naarka camalkoodii, fayadkhuluhaa, naartii ayuu gelayaa. wa ina axadakum, axadkiin, la yacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli الnaar, ahlu naarka camalkoodii, xataa maa yakuunu, ilaa aysan ahaanin beynahu wa beynaha, isaga iyo naartii inta u dhaxaysa, ilaa diraacun, dhudhun ma ahane. fayasbiqu calayhi اlkitaabu, kitaabkii baa ka hormaraya,
fayacmalu bicamali ahli ljanna wuxuu samaynayaa camalkii ahlu jannaha fayadkhuluhaa jannada ayuu gelayaa. rawaahu albukhaariyu wa muslim. xadiidkani waa xadiis aada u weyn oo cadiim ah, sida axaadiista kitaabkan ku qoran oo dhanba ay u tahay axaadiis waaweyn oo usuulu lislaam ah, mabaani lislaam wa qawaacid alaxkaam sida uu ku magacaabay alimaam annawowi raximahullah. waxyaalo badan baa laga faa'iideysanaya xadiiskan. waxaa ka mid ah arrinta cajiibka leh ee la xiriirta qofka ibni aadamka abuuristiisa, sida allah subxaanahu wa tacaala uu qof walba u abuuray, wixii uu ka soo bilowday iyo waxa uu u dambeeyey markaad isu fiiriso cajaa'ib ayay leedahay. qofkan wuxuu ka bilowday candhuuf ama mani, shay mustaqdar ah oo marada hadduu kaa gaaro aad iska mayrayso ayuu ka bilowday. kabacdiina qofkan dhammaystiran ee awoodda leh ee caqliga leh ee faanaya ayaa ka soo baxay oo allah subxaanahu wa tacaala uu ka sameeyey. xadiidka marka wuxuu sheegayaa 4 marxalo qofku inuu soo maro inta aan qof dhammaystiran inta aanu noqon. marka koowaad waa nudfa, candhuuf, manidii weeyaan, riximka gashay ilmagaleenka. kabacdii manidaas baa waxay isu bedelaysaa dhiig, dhiiggaasina dhiig adag buu noqonaya oo xinjir ah. kabacdii waxaa marxalada saddexaad uu noqonayaa hilib, cad hilib ayuu noqonaya. kabacdi ayuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigayaa lafo ayaa ka samaysmaya cadkaa hilibka ah, lafahaasna hilib ayay sii yeelanayaan. fakasawna alcidaama laxman huma ansha'naahu khalqan aakhar, sida allah qur-aanka uu ku sheegay. lafa ayuu noqonayaa, lafi ayaa hilib loo yeelayaa, ruux buu ilaahay ku u yeelayaa. malag baa loo soo dirayaa, yacnii meesha uu ku jiro waa meel ilaahay uu ku maamulayo. marka laga sheekeynayo dadka yaqaana ee caafimaadka ku takhasusay ay kaaga sheekeen aad baad ula yaabaysaa meeshaas uu ku jiro caruurkaasi, iyo sida allah subxaanahu wa tacaala wax walba uu u baahnaan lahaa uu ugu tawfiiriyey. wax walba uu u baahan yahay waa meesha ka helaya. marka malag baa loo soo dirayaa, shaqo ayaa socota, aduu laakiin ma ogid. xataa haweenta caloosheeda waxaas ay ku beermayaan howlahaas badan ee socday iyadoo war uma hayso, waxun way dareemaysaa caafimaadkeedii. malag baa loo soo diraya, malagaas baa ruuxdii ku afuufaya, markaas buu dhaqdhaqaaq bilaabaya, ruuxdii baa lagu afuufay. calooshaas inta uu ku jiro ayaa adduunka marka uu u soo baxo wixii uu qaban lahaa iyo wuxuu heli lahaa loo qoraya, iyadoo horeyna ay u qornaayeen oo maqaadiirta ilaahay uu qoray qabla khalqi samaawaati waalard. cirar iyo dhulba intaan la abuurin ayuu ilaahay maqaadiirtoo dhan qoro, lawxul maxfuudka wax walba ku yaalla. laakiin mar labaad baa la qoraya caloosha hooyada qofka markuu ku jiro. malag baa loo soo diraya, 4 arrimood ayaa lee waa inaad qorto. 4 arrimood isagu iska qori maayo malagu, ee allah subxaanahu wa tacaala ayuu weydiinaya, sida riwaayadaha qaar ku soo arooray. wuxuu leeyahy rabbiyow risqigiisu imisuu noqonaya, cimrigiisu imisuu noqonaya, camalkiisu muxuu noqonaya. ilaahay baa amraya. marka risaqiisii baa la qorayaa, irsaaqadaada calooshaa hooyadeed intaad ku jirta ayaa la qoray. maalinkii ruuxda lagugu afuuf ayaana kuu bilaabatay oo hooyada xudunta ayaad uga qaadanaysay wixii irsaaqadee lagu qoray. cuntada iyo cunto iyo waxay cabto iyo waxaasoo dhan qayb baad adugu ku lahayd oo wax ilaahay uu kuu qoro oo kuu qoondeeyey. meeshaas ciriirigaah aad ku jirtay ee albaab iyo daaqad aan lahayn, meel laga neefsado aan lahayn, meel wax laga soo qabsadana aan lahayn, ee kaliga aad ku tahay, rabbulcaalamiinkii kugu irsaaqay, wixii aad u baahnayd kugu siiyey, ayaa adduunkana markaad u soo baxdo kugu irsaaqay. marka ku kalsoonow mar walba irsaaqada allah subxaanahu wa tacaala inay ku soo gaarayso si walbo aad tahay. si walbo aad u orodana waxaan ku qornayn ma gaaraysid. marka risaqiisii meeshaas baa loogu qoraya adduunka markuu u soo baxo, inuu hantiilo noqon doono, inuu faqiir noqon doono. maalin walba luqmadda afka kuu gelaysa wax qoran weya. waxaa kaloo la qoray cimrigiisu intuu leegyahay, cimri dheer inuu leeyahay, cimri gaaban inuu leeyahay, ilmanimo inuu ku dhimanayo, dhallinyaronimo, oday inuu noqon doono, inuu ciroolo noqon doono. waxaasoo dhan wax qoran weeyaan. maalin aada nooshahay, daqiiqad aada nooshahay ma jirto ilaa way kuu qoran tahay. waxaa kaloo la qoraya camalkiisa, waxa uu qaban doono,
camal adduuniya mid aakhiraba waxaad ka shaqayn doontaa way qoran tahay ganacsiga aad qaban doontaa wuu qoran yahay waxbarashada aad qaban doontaa way qoran tahay camalka saalixa iyo cibaadada aad samayn doontaa way qoran tahay wax camal walba shaqo walba adduunka aad samaynayso wax kuu qoran weeyaan adduunka haddii la dhaafo aakhiro qofkan ahlu janno inuu noqonayo iyo ahlu naar inuu noqonayo way qoranta laftirkeed marka laga bilaabo caloosha hooyada markaad ku jirto daaru dunya markaad u soo baxdo daarul barzakh oo qabrigii ah daarul qaraar oo qiyaamihii ah dhammaan xaaladaad mid qoran weeyaan xaaladaad waa mid qoran aduu laakiin ma ogid طبعا nabigu sal allahu alay wasalam markaa wuxuu ka sheekeeyey qofka shaqi iyo saciid marka uu yahay in ay ku dhismayso laga fiirinayo khaatimada oo qof haddaad aragto wanaag badan samaynaya camalkii ahlu jannada samaynaya oo khayrkiisu badan yahay ahlu janno waay ma dhihi kartid sababtoo waxaa dhici karta khaatimada in ahlu naar uu noqdo markaas uu samaynayo dadka ahlu jannaha camalkoodana sida riwaayadaha qaar ku soo aroora fii maa yadharu linnaas weeyaan waa sida dadka u muuqata laakiin xaqiiq ahaan ma aha ahlu janno qofkaasoo kale marka waxaa la yidhaha khayr baa loo rajeynayaa ilaahay khaatimadiisa ha hagaajiyo baa la yidhahda waxaa dhici karta iyadoo jannadii wax yar ay uga dhiman yihiin oo camalkaa saalixa inuu ku dhinto oo keliya ay uga dhiman tahay aakhirka inuu towfiiqdii beelo oo khaatimo xumo uu ku dhinto ama gaalnimo uu ku dhinto ama uu ku dhinto munaafaqnimo ama camal sayi ah iyo kabaa'ir iyo dunuub uu ku dhinto culimmaduna waxay yidhaahdaan qofka khaatimo xumada waxyaalaha u keena waxaa ka mid ah adduunka inta uu ku nool yahay yaqiintiisu inay daciif tahay kow iyo inuu leeyahay dunuub hoose oo allah uu isaga ku og yahay dadku laakiin isa ku ogay waxyaalaha hooseo asraaruhu leeyahay oo xumaan ah oo khatar ah ilaahay wuu ku og yahay laakiin dadku kuma oga wanaagun bay arka qofka yaqiintiisu qalbigiisa ilaahay wuu og yahay laakiin dadku ma oga yaqiintiisii baa daciifa waxyaalaha keena khaatimo xumaday ka mid tahay marka qofkii waxaa dhici kartaa noloshiisa inta badan inuu camal wanaagsan iyo khayr uu ku dhammaysto laakiin aakhirka ahlunaar uu noqdo wax yar markay uga dhiman yihiin inuu bayro sidoo kale cagsigaa dhici kara qof noloshiisiiba camalkii ahlunaarka ku jira oo inuusanba muslim ahayn laga yaabo bal inuu muslimiintii laynayo uu baabi'inayo laga yaabo yay dhici kartaa aakhirka inuu soo islaamo oo islaamnimo wanaagsan uu ku dhinto waxaa ka dhici karta inuu mooryaan yahay waxaa dhici karta inuu mubtadic yahay waxaa dhici karta inuu qof aada u liita yahay oo cibaadaadkii iyo khayrkii waxaasoo dhan ka maranoo khamri iyo mukhadaraad iyo balaayo wax kale ku mashquulsan qofkaa marka ma dhihi karti ahlunaar baa tahay ahlunaar ayaa tahay ama qofkaas ahlunaar weeyaan lama dhihi karo adiga ma ogid waxa uu ku dambayn doono waxaa dhici karta iyadoo wax yar ay uga dhiman tahay naartii in towfiiq uu helo khaatimo wanaagsan uu ku dhinto sidaasna jannadii uu ku galo marka inama alacmaalu bilkhawaatiim weeyaan acmaasha waxaa loo fiiriyaa khaatimooyinka xadiidkan marka xadiid la yaab leh oo cajiib leh weeyaan manhaj iyo qaab qofku uu ku noolaadana uu ka fahmayo waxyaalaha uu ka fahmayo waxaa ka mid ah laba arrimoodba kow qofku qadarkii ilaah inuu rumeeyo haddii risqi ay tahay wuu ku qoran yahay haddii cimri ay tahay wuu ku qoran yahay calafkaaga iyo cimrigaaga iyo camalkaaga intuba way qoran yihiin ahlu janna iyo ahlunaar waxaa tahay way qoran yihiin marka qalbigaada ha ku xasilo taa ilaahayna ku kalsoonaaw taa waa daruuri qadarka ilaahay subxaana wa tacala rumayso marka labaad camal in la doonayo anigu waa ii qoran tahay ahlu janna iyo ahlunaar waxaan ahay maxaan ka shaqaynaya ma aha waa inaad camal fasho camalka ilaahay baa ku faray weliba camalka aad samaynaysana waa inaadan ku kadsoomin oo haddii ay isugu kaa aado cibaadadii iyo camalkii saalixa iyo khayrkii ilaahay uu ku waafajiyo nafsadaada aysan ku cajab gelinin ahlu janna tahay isdhihin ee khaatimada inaad ka cabsato weeyaan nabigu sal allahu alay wasalam marka xadiidka waxaa la yidhaha xadiidu saadiqi almasduuq sababta ibn mascuud baa kelimadaas isticmaalay asaadiqu almasduuq nabigu wuxuu yihi sal allahu alay wasalam ina axadakum qofkiin yujmacu waa la kulminayaa khalquhu abuuristiisa fii badni ummihi
hooyadiis caloosheeda lagu kulminaya 40 yowman 40 maalmood 40 yowman nudfatan baa nusqooyinka qaar ku qoran ثuma yakuunu calaqatan kadibna xinjir buu noqonaya midla dalika intaasoo kale ثuma yakuunu mudqatan kabacdin cadhil buu noqonaya midla dalika intaasoo kale ثuma yursalu lmalaku kadib malag baa lasoo diraya fayanfuqu fiihi ruuxa ruux buu ku afuufaya oo markaa nolol baa soo gelaysa wayu'maru malagii waxaa la amrayaa biarbaci kelimaatin 4 kelimo bikatbi risqigiisa inuu qoro caruurkaa caloosha ku jira risqigiisa waan loo sheegaya risqigiisu waxa uu yahay risqiga marka wuu qoraya wa ajalihi cimrigiisa inuu qoro ajashiisa wa camalihi camalkiisa inuu qoro wa shaqiyun aw saciidun mid ahlu jannaa inuu yahay mid ahlu naar inuu yahay inuu qoro fahuwa aladii allih baan ku dhaartuyo nabiga sal allahu alay wasalam laa ilaaha hayruhu macbuud xaq lagu caabuda isagaan ahayn aanu jirin ina axadakum qofkiin la yacmalu wuu samaynayaa bicamali ahli ljanna ahlu jannaha camalkoodii xataa maa yakuunu ilaa aysan noqonayn beynahu wa beynaha isaga iyo jannada inta u dhaxaysa ilaa diraacun dhudhun maahane ana waa qiyaas ahaan kaanama dhul hadday noqon lahayd hal dhudhun oo kale hal mitir nus mitir oo kale mar uu u jiro shaygii qofka yani aad buu ugu dhow yahay waa qiyaas ahaan waa lagugu tusaaleynaya yani dhudhun oo kale mar uu u jiro jannadii fayasbiqu calayhi lkitaab kitaabkii baa ka hormaray kitaabka waa maxay yani wixii loo qoray wa shaqiyun aw saciidun tii loo qoray caloosha hooyadii markuu ku jiray iyo intaa ka horba qabla khalqi samaawaati waalardi loo qoray ayaa ka hormaray fayacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli naar ahlu naarka camalkoodii fayadkhuluhaa naartiibu markaa gelaya wixii hore uu kusoo jiri jiray taas baa uga dambeysay wa ina axadakum axadkiin la yacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli naar ahlu naarka camalkoodii xataa maa yakuunu beynahu wa beynaha ilaa aysan noqonin isaga iyo naarta inta u dhaxaysa ilaa diraacun dhudhun maahane fayasbiqu calayhi lkitaab kitaabka hore qadarkii ilaahay baa ka hormarayo fayacmalu bicamali ahli ljanna ahlu jannaha camalkoodii buu samaynayaa fayadkhuluhaa jannadii buu sidaa ku gelayaa ilahay khaatimadaha noo suubiyo rawaahu lbukhaariyu wa muslim alxadiidu alkhaamis xadiidka shanaad can ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood waxaa laga wariyey ummi cabdillaahi ahayd caaishata ahayd radia allaahu canha allah ka raali noqdee qaalat waxay tihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man axdatha qofka soo darisiiya qofka keena fii amrinaa arrinkeenna diinkeenna qofka ku keena haada ee midkaan ah maa laysa minhu wax aan ka mid ahayn fa huwa isagu shayga uu keenay raddun mid la radinayo weya marduud weya rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey wa fii riwaayatin limuslimin riwaayo muslim uu leeyahy waxaa ku jirtay man camila qofka sameeya camalan camal laysa calayhi amrunaa camalkaasoo amarkeennu uusan saarnayn fa huwa raddun mid la celinayo weya xadiidka ay warinayso caaisha binti abi bakar zawji الnabiy salى اllahu عalيه wasalam xaasaskii nabiga ka mid ahayd sida la wada garanayo waa xadiid aada u weyn oo qofka camal walba oo uu samaynayo ee diin uu ula jeedo ee ilaahay uu ugu dhowaanayo shardi laga doonayo tusinaya camal walba oo qofka allah uu ugu dhowaanayo laba shardi ayuu leeyahy shardiga koowaad waa al-ikhlaas ikhlaas inuu kula yimaado shardiga labaadna almutaabaca mutaabacadii nebiga sharcigii nebiga sala allahu calayh wasalam waa inuu ku raacsan yahy uu ku waafaqsan yahy shardiga koowaad xadiidkii koowaad baan ku soo marnay inama alacmaalu biاnniyaati wa inama likulli imri'in maa nawac kaas baan kusoo fahmay shardiga labaadna xadiiskan baa tilmaamay qofku camal walba oo uu samaynayo ee allah subxaanahu wa tacaala uu ugu dhowaanayo wuxuu ku rajaynaya allah inuu ka aqbalo oo maalinka qiyaamaha ilaahay abaalmarin wanaagsan uu ku siiyo oo allah uu uga raali noqdo raxmaddiisa uu ku helo haddii lagu yidhaha marka camalkaas maalinka qiyaamaha wejiga ayaa lagaaga soo tuuraya waa lagugu soo celinayaa lagama aqbalin weeyaan waxna ku heli maysid bal dhibaato inay kaa soo gaartaa dhici karto maxaad sidaa u samaysa lagu yidhaahdo waxaa muhiima marka qofku camal walba uu samaynayo ee allah subxaanahu wa tacaala uu ugu dhowaanayo inuu iska hubiyo allah wuxuu noo abuuray inaan caabudno isaga wamaa khalaqtu اljinna waاlinsa ilaa liyacbuduun sidaa doontiin alle u caabudana lama dhihin qof walba intuu fekero
sidii ay la noqoto ilaahay ha u caabudo ma jirto. haddii sida ay tahay rusulba lama soo diri lahayn, kutubna lama soo dejin lahayn, sharci layskama dalbi lahayn in la raaco qof walbaahi siduu doonay hawadiisu ku dhaqmi lahay. waxaa rususha loo soo diray ee sharciga loo soo dejiyey waa qaabka allah subxaanahu wa tacaala aan u caabudayno in naloo sheego. qaabkaas allah marka uu sheegay oo isagu uu soo dejiyey oo rasuulka uu soo faray waa in loo caabudo. ilaahay isagaa ku yidhi icaabud, qaabkaad u caabudi lahaydna rasuulka ayuu kuu soo faray. labada arrimood waa inay asaas kuu tahay. marka nabigu sal allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahay sharciga anigu aan keenay dadku waa inay ku cibaadaystaan, wax kale inay ku cibaadaystaan ma bannaana. walidaalika ayaa culummadu markay tirinayeen xuquuqda nabiga sal allahu caleyh wasalam waxaa ka mid a bay yidhaahdeen anlaa yucbad allaahu ilaa bimaa sharaca. ilaahay waa inaan lagu caabudin ilaa wuxuu nabigu sharciyey maahane. sababtoo ilaahay sida loo caabudayo nabiga sal allahu alay wasalam ayaaba loo soo diray inuu dadka u bayaaniyo. marka allah waa inaadan ku caabudin ilaa wixii nabigu sal allahu alay wasalam uu sharciyeeyey oo hadal ahaan uu u sheegay ama ficil ahaan uu u sameeyey. haddii marka qofku wax kale uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudo ma laga aqbalay, mana anfacayso adduun iyo aakhiraba. waxaa la yidhaahdo weeyaan bidcada. bidcadu waxa weeye sharcigii nabigu sal allahu alay wasalam uu keenay wax ka baxsan qofku inuu ku cibaadaysto. sharciga nabi moxamed sal allahu alay wasalam uu keenay wax ka baxsan inuu qofku ku cibaadaysto yidhaahdo ilaahay baan ugu dhowaanayaa, bidca ayaa la yidhaahdaa, laga aqbali maayo. nabiguna sal allahu alay wasalam xadiidkan bidcada ayuu ku tilmaamay saddex arrimoodba inay leedahay. saddex arrimood inay leedahay. man axdatha fii amrina man axdatha marka leeyahay ixdaadku waa wax cusub, xaadith wax dib ka yimid baa la yihahdaa. qofka dib ka keena macnaha hore ma aysa u jirin, wax nabigu sal allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisii ay yaqiineen ma aha, waa wax dib laga keenay. marka qofka dib ka keena ee ku soo dara diinkan wax dib laga keenay marka waa inay tahay bidcadu. wixii nabigu sal allahu alay wasalam uu ku cibaadaystay, saxaabadu ay ku cibaadaysatay, bidco ma noqonayaan, sababtoo xaadith maba ah. man axdatha in dib laga keenay horta waa arrinta koowaad. arrinta labaad fii amrinaa haadaa arrinkeennan diinkeennan bidcadu waa shay qofku uu dib ka keenayo diinkiina la xiriira. wixii allah subxaanahu wa tacaala lagu caabudi lahaa ee sharci laga dhigi lahaa la xiriira. wixii aan sharci laga dhigayn wax walboo dib laga keenayo mushkilad ma laha. yani gawaaridan aan helno iyo daaraha dhaadheer iyo kaamiradan internetka aan haysanno iyo nicmooyin ilaahay uuna siiye weya wayakhluqu maa laa taclamuun weeyaan. wayakhluqu maa laa taclamuun, kuwaas waa nicmooyinka ilaahay bay ka mid tahay mutajadidka ah ee maalin walba iyo sanad walba iyo xilli walba nooc cusub aan helayn. waxaa laga hadlaya bidcadu ma aha adduunyada iyo wixii la mid ah, waa wixii diin laga dhigayo. arrinkeenaan diinka ah, diinkana waxaa soo gelaya kan cibaadaadka la yidhaahdo iyo wixii tashriic la yidhaahdo, sharci la yidhaahdo. cibaadaduna way soo gelaysaa ogow, mucaamalaadkuna way soo gelayaan wixii diin laga dhigayo, qaanuun laga dhigayo, sharci laga dhigayo. in la yidhahdo camalkan ilaahay baa loogu dhowaanay, ajar baa lagu helaya. in la yidhaahdo camalkan waa sharcigu ka mid yahay, waa waajib sharci ahaan, ama waa sunno sharci ahaan, ama waa xaaraan sharci ahaan, sharcigii loo tiirinayo, walow haba ku saabsanaado markaas guurkii ama ganacsiga ha ku saabsanaade. fii amrinaa haada weyaan. marka axkaamtii sharciga ahayd inuu qofku ku soo daro weyaan oo u tiiriyo. shay buu dib ka keenay, diinka ayuuna u tiiriyey, waa arrinka labaad. arrinka saddexaad maa laysa minhu, ka mid maahan diinkii waxa uu keenay diinkii ka mid ma aha. inaysan ka mid ahayn sidee lagu ogaanayaa? sharciga waa la yaqaanaa. waxyiga allah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey iyo qaabka loo daliishado ee masaa-isha loogala soo baxo ee masaladan inay ku jirto inaysan ku jirin lagu ogaanayo waa la garanaya, culum ay leedahay. marka maa laysa minhu waa arrinka saddexaad ee bidcadu ay ku sifaysan tahay. diinka islaamka inuusan ka mid ahayn oo aayadi ma sheegin, xadiidna ma uusan sheegin,
إجماعي علماء المسلمين لوما هيو قياس صحيح لوما هيو الدليل شرعي ما لهن معنيه دليل شرعي ما لهن دليل شرعي هو أفرتاس الكتاب والسنة والإجماع والقياس أفرتا منها دوسا لهين دينك إسلام كمد معه أفرتا إنو صن لهين عده بكرتانا وعلماء إنو صن كمد هين وأفرتا صل إراد وصن كل هين عده بكرتا علماء ويا qof walba marka ma dhihi karo waxaas waa bidco iyo waxaas waa sunno culimadu baa ka hadli karta saddexda marka laga helo amalkii bidca ayuu noqonaya waa wax dib laga keenay diinka lagu soo daray diinkiina sal iyo raad aan ku lahayn xukunkiisu muxuu noqonayaa fa huwa raddun mid la radinayo weeyaan wax la aqbalayo ma aha innaguna ma aqbali karno muslimiintu waa inaysan aqbalin oo ay diidaan oo ay inkiraan oo ay radiyaan allahna ma aqbalayo الدنيا آخرة وقفك كأقبل مايو أبال مرينا كويل ما مالك قيامة والقصة الردينية حديث كمركة من أحدث أيويل قفكي شيء يستقو كياني وكهالله شيء كان أديك كياني وحد عكرت لك قفكو إنه هذا عمل كان أنيقا داد هوران كسو قاري أما داد علماء كسو قاري أما أبيالا كسو قاري أما دادك أنو ما أنا كين وحد يمد معه والدين عن داد كسو قارني haddii dad aad ka soo gaartay dadku iyagu ma ahayn kuwa sharci dejiyaalahe waa in sharciga laga helo xadiiska dambe ayaana taa kuu sii caddaynaya wuxuu ku yidhi nabigu sal allahu alay wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun qof walba oo sameeya camal sharcigii islaamka aan waafaqsanayn waa lala celinaya ama isaga ha looga horeeyo ama isagu ha hal abuuro mar haddii laysa calayhi amruna laysa calayhi sharcuna wey macnuhu sharcigeennu hadduusan saarnayn oo aayad aan loo helayn oo xadiis aan loo helayn oo ijmaac aan loo helayn oo qiyaas saxiix aan loo helayn fa huwa radd waa lala radinaya xadiidkaas marka xadiis aada u weyn weeyaan oo qofka miisaan u noqonaya nafsadiisana uu ku miisaamo dadka kalena uu ku miisaamo camalkani waa bidco iyo bidco maa in laisku khilaafaana way badanta waxyaalaha qaarna wax waadix oo la fahmi karo weeyaan miisaanka marka lagu fahmaya wuxuu yahay bidcada intaas nabigu sal allahu alay wasalam uu ku tilmaamay wax sharciga islaamka loo tiirinayo haddana sharcigii aan daliil looga keeni karin adilada sharcigaha ka mid ah man axdatha qofka keena fii amrinaa sharcigeenna ku keena haadaa ee midkaana maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun fa huwa marduudun mid la radinayo weeyaan rawaahu albukhaariy wa muslim wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim uu leeyay waxaa ku jirtay man camila camalan laysa calayhi amrunaa qofka sameeya camal arrinkeennu sharcigeennu uusan saarnayn فهو رد مد لغو ردنا يويا الإمام النووي حديث كا مركو شرحي صحيح مسلم كشرعيس وعليه وحا هبون حديث كا دادك دحدود إلا قفها فيه ودادك علماء يعامة حديث كا أي سفي عن وشيغان سببتو قاعدة وين باكو جرته ودادك عمل كود وكو صحميو الحديث السادس حديث كاللحاد عن أبي عبد الله وحا لغوري النعمان من بشير أها رضي الله عنهما إسقي أبيب الله كرال النقضي والله بس حبيبي أهايين قال وحيري سمعت وحان مقل رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول إسقوله إن الحلال بين حلاش مد عدويا وإن الحرام بين حرامتنا مد عدويا وبينهما دحدود وحا أهاضي مشتبهات وحيال السؤك لا يعلمهن أوسن قرن كثير من الناس إن بدن وددك كمد فمن اتقى قفك إسكا إلالي الشبهات شبهوينك فقد استبرأ وبري يلي لدينه دين كيس وعرضي شرف كيس أيو بدباد يبري النقش الرادي ومن وقع قفك كردع في الشبهات شبهوينك وقع في الحرام حرانتي بكردعي uu ku dhacayaa ugu dambayn ka raaci wuxuu la mid yahay kii xoolaha jiray yarca ee daajinaya xoolaha xowla alximaa seeraha dhinacyadiisa meel seeraha xiran oo aan la ogolan in la galo ayuu dhinaciisa daajinaya yuushiku wuxuu ku sigan yahay ku dhow yahay an yartaca fiihi inuu daajiyo alaa wa ina likulli malikin warhooy boqor walba wuxuu leeyahay ximan seero ayuu leeyahay meel uusan ogolayn in laga galo ألا وإن حمى الله تعالى ألا سيره سنة محارمه وحياله وحرمه ويا تاس أيوسن أقول إن لو دوادو
alaa wa ina fi ljasadi jirka waxaa ku jira mudqatan cad hiliba idaa salaxat hadday hagaagto cadka hadduu hagaago salaxa aljasadu kulluhu jirka oo dhan uu hagaagayo wa idaa fasadat haddii cadkaasi uu xumaadana fasada aljasadu kulluhu jirka dhammaantiis kulligiis uu xumaanayo alaa wahiya alqalbu cadkaasina qalbiga weeyaan wadnaha weeyaan rawaahu albukhaariyu wa muslim xadiiskaani marka axaadiista cajiibka leh waaweyn buu ka mid yahay isaguna nabiga sal allahu alayh wasalam wuxuu ku tilmaamayaa qofka sida uu isu ilaalinayo adduunka intuu joogo sidee ayaad isu ilaalinaysaa adiga nafsadaada marka la fiiriyo waxyaalaha aad samaynayso iyo qaabka aad isu xakamayn karto iyo waxyaalaha kale qaabka aad isaga ilaalin karto waxyaalaha kale marka kuloo soo gudboonaanaya ama ha noqoto dadka xaggooda wixii kaaga imaanayo la tacaamulka dadka aad la tacaamulayso ama ha noqoto waxyaalaha haddii laftirkaaga ku soo gelaye ama maal ah ama wixii la mid ah waxaasoo dhan sidaad isaga hubin karto oo aakhiradaada aysan dhib ugu geysan ayuu xadiisku tilmaamaya wuxuu nabigu leeyahy sal allahu alayh wasalam xalaashu yani ashyaadu waxay u qaybsamaan 3 qaybood waxaad ogtahay xalaal cad inuu yahay aada hubto iyo waxaad ogtahay xaaraan cad inuu yahay oo aada hubto waa xalaal cad iyo waa xaaraan cad marka lagu leeyahana waa cilmi inaad u leedahay ma aha sidaas bay ila tahay iyo sidaasaa dadku sameeyaan iyo dadku maadaama waxaasay wada sameeyaan waa xalaal maadaama waxaasay iska ilaaliyaana waa xaaraan taas maaha waxaa laga hadla waa cilmi inaad u leedahay shaygu wuxuu xalaal ku noqdaa taxliilkii allah subxaanahu watacala sida xadiisu noogu imaan doonta wuxuu xaaraan ku noqdaa ilaahay inuu xarimo ama nabiga sal ly slam uu xarimo marka cilmi baad u leedahay waxaad ogtahay ilaahay shaygan inuu xalaaleeyey waxaad ogtahay shaygan ilaahay inuu xarimay labadaas way cadda waxaa jira qeyb saddexaad oo aan kugu caddayn adiga qeyb saddexaad oo dadku ay ku kala duwan yihiin baa jirta nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu ku magacaabay mushtabihaat mutashaabihaadna waa la yihahdaa waxyaala mutashaabiha weeyaan oo qofka dhinacna aysan u caddayn xalaal cadna maaha xaaraan cadna maaha laakiin wax walba labadiiba wuu ixtimaali karaa uu qaadan karaa dadka iyagu markaa la fiiriyo qeybtaas waxay u qaybsamayaan 2 qaybood qaybna way garanaysaa inuu xalaal yaha ayaa u cad ama inuu xaaraan yahaba u cad qolana weli waxba uma cadda nabiga ayaana tilmaama 2 qoloo wuxuu ku yihi laa yaclamuhuna kathiiru min annaas in badan oo dadka ka mid yihi ma garanayaan in badan oo ka mid yihina way garanayaan baa meesha ku jirta marka in badan oo dadka ka mid yihi way garanayaan waxyaalaha mutashaabiha ah oo shaygan adiga ayuu mutashaabih kaa yahay qofkan kalena wuxuu og yahay inuu xalaal yahay ama wuxuu og yahay inuu xaaraan yahay kii marka ay wax u caddaadeen qeybtii horuba soo galo in alxalaala bayinu wa in alxaraama bayinu buu ku jira adiga oo bahasha ay kaa qaldan tahay isaga kaa qasan tahana qeybtan dambe mutashaabihaadka ayaad soo gelaysaa maxaa kula gudboon marka wixii xalaal cada waa la fahmay wixii xaaraan cad ahna waa la fahmay intaa u dhaxaysa mushtabihaadka sidee ayuu qofku ula tacaamulaya qofka noloshiisa qeyb badan oo ka mid ayaana sida ah ficil aad samaynayso baa marka qaar kugu imaanaya oo aadan dhihi karin 100% waa xalaal ama aadan dhihi karin 100% waa xaaraan oo ay suurtagal tahay wuxuu inay xalaal yihiinna way dhici kartaa inay xaaraan yihiinna way dhici kartaa waxyaalaha qaar aad cunayso cuntooyinka aad cunayso ama waxa aad cabayso ama shaqada aad shaqaysanayso ganacsi la xiriirta matalan ama guurkii la xiriir ama wax walba waxyaalo badan oo sidaasaa jira oo qofka qalbigiisa ay dhici karto inuu isleeyahay waxaan xalaal inay tahana way dhici kartaa marka dhinacaas laga fiiriyo inay xaaraan noqdaana way dhici kartaa dadka qayb badan oo ka mid marka waxay ku socdeen maadaama xaaraan cad aysan ahayn iska samay maadaama xaaraan cad wixii aysan ahayn horay u soco iska samay taasina qalad weeyaan nabiga sal allahu alayh wasalam siduu qofka ula dardaarmay u fiirso wuxuu yihi ashyaadaas waa inaad iska ilaaliso waxyaalaha waa inaad iska ilaaliso inaad iska ilaalisana diinkaaguna wuu kuugu badbaadayaa dadnimadaaduna way kuugu badbaadaysaa diinkaagu wuu kuugu badbaadayaaho wixii ay dhici lahayd inay xaaraan noqdaan maba aada samayn haddaad samayso waxaa dhici karta inaad dib ka ogaato wixii inay xaaraan yihiin ama hadhowba ay soo baxdo wixii inay xaaraan yihiin waxaad noqonaysaa marka qof xaaraan ku dhacay diinkaaga nuqsaan baa gelaysa
dadnimadaada iyo cirdiga iyo sharafkaaduna wuu kuu badbaadayaaho wuxuu markii shubha ay ku jirto dadka qaar baa laga yaabaa inay ku yidhahdaan xaaraan buu samaynaya ay wax kaa sheegaan xaaraan maadaama wax xaaraan lagu dhihi karabaa meesha ku jira oo shubha ku jirta shubhadaas darteed dadka qaar inay ku yidhahdaan xaaraan buu sameeyey xaaraan buu cunay xaaraan buu maaragtay ku labistay guri xaaraan uu degaya waxyaalo la mid ah marka in wax lagaa sheegana waad uga badbaadaysaa inay wax kaa soo gaaraan diin ahaanna waad uga badbaadaysaa shubahaadka dad ka fogaato haddii aadan ka fogaanna waxaa dhacaysa diinkaagu inuu xumaado oo qofku waxyaalahaas mushtabihaadka ah hadduusan ka fogaan ilaa waxaa laasima xaaraan inuu ku dhici doono shaygaani labada mid weyn ama waa xal ama waa xaaraan adigiisan weli kuu caddayn ama waa xalaal ama waa xaaraan laakiin adiga ayuusan weli kuu caddayn midkaas haddii mar aad samayso oo ilaahay uu kugu aadiyo kii xalaasha ah mar labaad aad samayso kii xalaasha ilahay uu kugu aadiyo mar saddexaad aad samayso kii xaaraanta aad ku aadaysaa haddii marka aadan iska ilaalin mushtabihaadka xaaraan waad ku dhacaysaa taas waa mid waxaa kaloo dhacaysa waxyaalaha mushtabihaadka sidaan soo marnay duruusta hore ku soo qaadanay waa derbi qofka u dhexeeya isaga iyo xaaraanta waadixa oo qofka waxyaaluhu waa dhufaysyo kala duwan xaaraanta qayaxan ee barxala waa meel shubahaadkii baa ka sokeeya makruuhaadkii baa ka sokeeya mubaaxaad baa ka sokeeya waxay u kala duwan yihiin mubaaxaadkii o dhan haddaad jiirto shubahaadkii baad ku dhacaysaa shubahaadkii o dhan haddaad jiirtana xaaraantii baad ku dhacaysaa haddaad shubahaadkan kusii socoto marka xaaraantii qadcanka ahayd ayaa dalaqleeda marka dambe waqaca fi lxaraami macnuhuna sidaa wuu noqonaya qofka shubahaadka ku dhacaay xaaraantii caddayd buu ku dhacaya marka dambe oo iyada gaarsiinaysa nabiguna sal allahu alay wasalam tusaale ayuu ku siiyo wuxuu ku yidhi maalan waxaa jirta meel beer ah ama seere ah oo xaraysan boqorkii magaalada ayaa meeshaas xareeyey xoola lama daaji karo ayuu yidhi isaga xoolihiisa ama xoolihii dowladda iyo wax lamid ayuu rabaa inuu ku xareeyo meeshaas oo ku dhaqaaleeyo dadka kale shaqo kuma lahan buu yidhi meeshaas qofkii xoolihiisa geliyana waa la ciqaabaya dadku marka waa inay sameeyaan si meeshaas xooluhooda aysan u gelin inay kala fogaadaan qof caqliga wuu kala fogaanaya haddii laakiin xaradii la diidanaa derbigeedii inaad ku warwareejiso xoolaha marka dambe dalaq bay leeyihin haddii dalaq yidhahdana maxaa kuu dhiman waa lagu ciqaabaya dembiga waad gashay marka ha ku meeraysan wixii ilaahay uu kuu diiday shubahaadka ka fogow waxa ilaahay uu xarimo ha laga fogaado ayaaba la yidhaha sida xadiista noogu imaan doonta ha samayn oo keliya maaha waxyaalahaas marka u dhow oo dhan waa inaad ka fogaato haddii aadan ka fogaan marka dambe xaaraantii caddayd ayaa dalaq leedoo aad gelaysaa allahna subxaanahu wa tacaala waxyaalaha seeraha u ah oo tashbiihaas lagu shabahay waa waxyaalaha uu xarimay wixii uu xarimay weeyaan waxa la diidan yahay in loo dhowaado meelaha waxa u dhowo la sheegayna waa shubahaadkii shubahaadkaas marka haddii aad samayso qofkaa beerta derbigeeda xoolaha daajiyey ayaad la mid tahay marka dambe dalaq baad leedahay taas marka waxyaalaha qofku uu samaynayo ee dadka kale uu kula tacaamulayo ama isagoo ku soo shaqaysanayo sidii ugu kala maamuli lahaa ayaa xadiisku uu caddeeyey adiga nafsadaada markaa sideed u hagaajinaysaa xaggeed ka bilaabaysaa nafsadaada inaad hagaajiso haddii aad doonayso nabigu wuxuu ku leeyahay waxaa jira jirkiisa qofka meel asaas u ah oo meeshaasi haddii ay hagaagto inta kale ay hagaagayso hadday xumaato inta kale ay xumaanayso waa qalbiga hagaajintiisa waa inaad ka bilowdo qalbigana laba shayba waad ku hagaajinaysaa cilmi iyo camalba waad ku hagaajinaysaa cilmi waa macrifa inaad wax barato waxbarashadu meesha ugu horeysa ay ku dhacaysa waa qalbiga waa iftiin ilaahay qalbiga qofka uu gelinayo cilmigu nuur weeyaan inaad marka barato diinkii allah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey sharciga nabiga sal allahu alay waslam inaad barato aad fahamto kabacdiina aad ku camal fasho camalfalkuna qalbigu ka bilowda camalulqalbi wax la yihahda baa jira go-aan qalbiga waa inuu jiro go-aan qalbiga niyo qalbiga waa inay jirto qofku qalbi ahaan waa inuu allah subxaanahu wa tacaala ku xiran yahay qalbigiisu waa inuu khushuuc leeyahy waa inuu tawakul leeyahy waa inuu rajaa leeyahy waa inuu khawf leeyahy waa inuu maxaba leeyahay waxaasoo dhan baa asaas u ah intaa marka la helo ayaa xubnuhu ay shaqaynayaan laakiin qof qalbigiisu uu maran yahay oo khayrka uu ka marayo xubnihiisu khayr ma yeelanayaan qalbiga waxa ku jira ayay xubnuhu ku shaqeeyaan matoorka asaasi ah waa qalbiga marka qalbiga ka bilow buu nabigu ku leeyahay sal allahu caleyh wasalam isaga haddaad hagaajiso xubnaha kale way hagaagayaan
وقلبي وحليرا ملك الأعضاء ويا ملك الأعضاء نبينا صلى الله عليه وسلم وحير مالي والبقف وابريستو فإن الأعضاء تكفر اللسان عربك أي إبهساه وحيتر هذا هدي توستو وان توسي إن هذا حماتنا وحماننا marka qalbiga laga soo tago carabka ku xiga marka qalbiga inuu ku dadaalo qofku carabkiisi uu ku labayo hagaajiyo xubnihi kale way hagaagayaan marka wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam in al-halala bayyinun halaashu mid cad weeyaan wa in al-harama bayyinun xaraantuna mid cad weeyaan wa baynahuma dhexdooda waxa ah mushtabihatun waxyaala isu eg oo ishabaha ama waxyaala xaraantiina u eg oo shabaha xalaashina u eg dhinacna xalaashi buu ogay dhinacna xaaraanti laa yaclamuhunna ma garanayo kathiirun min annaasi in badan oo dadka ka mid ma garanayaan waxyaalahaasi inay xalaal yihiin ama inay xaaraan yihiin faman ittaqa shubuhaadka qofka ka fogaada iska ilaaliya faman ittaqa shubuhaadka qofka iska ilaaliya istabra'a wuu u bari noqosho raadiya lidiinihi diinkiisa wa cirdiya sharafkiisa qof diinkiisa iyo sharafkiisaba beri inay noqdaan u raadiyo weeyaan ومن وقع قفك كدع في الشبهات شبهوين كان وقع في الحرام حرانتي بو كدع اساس بو دنبينيا تصالب ان لو سيو كراعي و علميديا كي خولها راعي يرعى داجينيا حول الحما سيرها دنعيديس حرادي بقر ku xareystay dhinacyadeeda yuushiku wuxuu ku dhow yahay an yartaca fihi inuu daajiyo oo beerti ay galaan alaa wa inna likulli malikin boqor walba wuxuu leeyahay ximan seero ayuu leeyahay meel u xiran oo uusan ogola in laga galo محمية ألا وإن حمى الله تعالى محارم إلهي سيره سنة وحياله وحرمي ويا ألا وإن في الجسد جرك وحا كجر مضغة عد هلبة إذا صلحت هديها هاقته مضغضاس عد كاسي هدوها هاقو صلح الجسد جرك وهاقو كله دمانتيس وإذا فسدت هدي وحماد عد كاسنا فسد الجسد جرك وحمان كله دمانتيس ألا وهي القلب حبن تاسنا قلبي قويا رواه البخاري ومسلم حديث بخاري مسلم أيا وريي الحديث السابع حديث كالتضباط عن أبي الرقية أبو الرقية وحلق وري تميم بن عوس الداري أها رضي الله عنه الله كرها للنقضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه يري الدين دينك النصيحة نصيحوية دينك ونصيح وخير مير قلنا وحن لمن يؤيه قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم لله الله بويه ولكتابه كتاب كيسويه ولرسوله رسول كيسويه ولأئمة المسلمين مسلمين تم مدحدود أيويه وعامته مسلمين تقود أهان تودويه رواه مسلم حديث كان مسلم باوري حديث كان وحديث وين سقنا وكه الله قفك دين كيسو واسيدا حق لغولي أقوتو قفك دين كيسو واسيدا أقوتو حق لغولي دين كوبا وأنا حقوق لغولي أدقودتو دين كلا شيء حقوق لغولي إن أدقودتو ويا نصيحة معنيدن وأنت قفك إن نصيحة الله سبحانه وتعالى وحلو لجيدا حقوق الله وكولي إن أقوتو حق الله وكولي إن عابده وحقوق أمر إن فرطانته وحكار هي إن تكفوقاته taas ayaa waxa la yiraahdaa an-nasiihatu lillahi ilaahi waad u nasiixaysa marka xaqi uu kugu lahaa ayaad ka soo baxday waxa soo galaya nasiixada Allah amal walba ee qofku uu sameyn karo ee Allah uu ugu dhawaan karo inuu ku dadaalo amal walba Allah uu ugu dhawaanayana inta uu hagaaji karo inuu hagaajiyo inta aad hagaaji karto inaad hagaajiso aad u hagar baxdo weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa kamid sunnadiisa inuu yiri qofku haduu tukanayo waxa tukataa salaata muwaddi'in adduunyada qof sagootinaya oo kale salaadu tukan la tuko hadii la nafta ayaa laga qaadaya labada ragcoo u dambeysay tuko si fiican baad u tukanaysa ugu khushuucaysa iyadoo qalbigaada marnaba aysan ka baxayn qabriga iyo qiyaamihii waxa ka horeey sidaas oo kale mar walba u hagar bax salaata muwaddi'in tuko haddaad soomayso soon dhammaystiran tuko haddaad sadaqa bixinayso sadaqa dhammaystiran u hagar bax waa xuquuqda Allah subxaanahu wa tacaala uu kugu leeyahay xuquuqda kitaabka uu ku leeyahay kitaabka quraanka ilaahay baa noo soo dejiyey kalaamka ilaahay baa noogu qoran
cilmi ilaahay uu noo soo dhiyo baa noogu qoran adduunkan kii aan ku dhaqmi lahayn oo aan ku dheefsan lahayn weeyaan aakhiro qofku markuu inuu fahmo waajibka ka saaran muxuu yahay xuquuqda uu kugu leeyahay maxay tahay waad fahamto kitaabka qur-aanka looma soo dejin meelaha masaajidda inuu noo yaallo oo xoogaa qofku dhowr sadar uu ka akhriyo hadba uu iska dhigo kadibna dantiisa uu ka raacdo looguma talagelin kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi liyadabbaruu aayaatihi aayadihiisa inay ku tadabburaan oo u fiirsadaan qur-aanka waa inaad barato macnihiisa waa inaad barato waa inaad u fiirsato waxa uu ku farayo oo aad samayso waa inaad u fiirsato waxa uu kaa reebayo oo aad ka harto noloshaadu waa inay ku jaan go-an tahay qur-aanka akhlaaqdaada iyo dhaqankaada waa inay qur-aanka ku dhisan yihiin nabiga sal allahu alay wasalam caaisha waxay tiri kaana khuluquhu lqur'aan dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu qur-aanka ayuu ahaa yacni qur-aankii ayuu dhaqan geliyey noloshiisuba waa qur-aankii sidaasoo kale ayaa la rabaa waana inuu qofku u hagar baxo qur-aanka kitaabka ilaahay xaqirin waa inaad weynayso kitaabka ilaahay adiga nafsadaada waa inaad kula dadaasho awlaadaada iyo ehelkaaga waa inaad kula dadaasho kitaabka inaad tacdiimiso oo aada sharafto oo qiimo uu kula leeyahay inaad ku camal fasho laakiin adduunyada muslimiintu way dayaceen qur-aanka haddii shaksi loo fiiriyo haddii bulsho loo fiiriyaba waa la dayacay oo dadku qur-aankii haddii la yidhaahdo barasho iyo faa'iido inuu leeyahay qofka inay ka dhaadhacsan tahay marka loo fiiriyo waxaa isleedahay kaanama maba aaminsana qur-aanka qofkani sababtoo noloshiisa maalin walba 24 saac waxaa laga yaabaa 95% waxaan qur-aanka inay ku dhisan tahay subaxdii inuu u kalo dukaankiisa ama meheradiisa ganacsiga ama wixii la mid ah oo adduunyadaas uu maaragtay ku dhex jiro oo keli ah yaa muhiimad la leh oo qiimo la leh 5 daqiiqo 10 daqiiqo 20 daqiiqo inuu fariisto oo qur-aanka uu barto oo uu xifdiyo oo uu fahmo way ku adag tahay culays bay ku tahay laakiin adduunyadiisa inuu u shaqaysaa kuma cusla adduunka wixii horumar uu ku gaaray ee aqoon ah wuu ku dadaalaya intaasoo sano yuu u ogolya ilmihiisu inay bartaan iskool 12 sano dhowr iyo 10 sano ayuu caruurka iskool baranaya dugsi hoose laga soo bilaabo ilaa dugsi sare marka kabacdi jaamacad buu sii gelaya kabacdi diraasaad culya buu sii gelaya intaasoo dhan waxaa laga yaabaa 20 sano inuu ku dhex jiro ama wax ku dhow diin ilaahayna uusan baran damaca laga leena waa adduunyo in lagu helo waxaa la barto wax kale maaha ogow marka cilmigii adduunyo ayaa lagu helayaa la islahaa wax badan baa loo dul qaadanaya cilmigii laakiin ilaahay uu noo soo dhiibay oo danteenna adduunya midda aakhiraba ay ku jirtay looma dul qaadan karo wax yar lagu bixiyo wax yar in lagu bixiyo oo waqti ah ama maal ah ama dadaal ah ama dulqaad ah lama awoodo ilmihii dugsigii inta yaroo ay dhigtaan yaa dhib ku ah haddii macahad waxbarasho la geynayo xoogaa bal khamiisii jimci meelaha lala fiiriyo ama waqti yaroo kooban hala fiiriyo waqtigaas laftirkiisu 2 sano 3 sano qofka hadduu wada bes waa dhammaatay diinka ma la iska waday waxbarashadiisa xaggee marka loo socda diinka haddii aan la baray diinku waa midka nolosha ay ku dhisantahay ee la rabay isagu inuu ra'sumaalka noo noqdo waqtiga inta u badan maalkeena inta u badan dadaalkeena inta u badan maskaxdeena inta u badan inaan gelino midkii la rabay weeyaan waxyaalaha kale adduunyadana walaa tansa nasiibaka min addunya wixii aad u kaalmaysan karto diinka ayaad ka qaadanaysa iyadoo asaas maanay ahayn marka waxaa la doonayaa kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nabiga sal alla ly slam kitaabka fasiraysa iyo cilmiga culimmadoo fasiraya labadoodaba qofku inuu u hagar baxo oo u nasiixayo nasiixada macnaheedu waa taas waajibka uu kugu leeyahay xaq dhowrka uu kugu leeyahay waa in lagaa helo walirasuulihi allah rasuulkiisii in loo nasiixeeyo rasuulka sidee loogu nasiixaynaya xaqa uu kugu leeyahay waa inaad ka soo baxdo xuquuqda uu kugu leeyahay inaad gudato weeyaan xuquuqda waxaa ugu horeysa qalbigaada inay ka dhaadhacdo qiimaha uu leeyahay iyo waxa uu ummadda u keenay qiimaha ay leeyihiin cidda soo dirtay iyo waxa loo soo diray iyo waxa uu keenay lala soo diray kulli waa inaad fahamsan tahay waa inaad aaminsan tahay wax adiga ku anfacaya oo aadan ka maarmayn marnaba inay yihiin intaa marka haddii la helo markaas baad gaaraysaa wixii uu ku faray inaad qaadato wuxuu kaa rabay inaad ka harto dariiqu mara inaad raadiso markaas baad aaminaysaa waddadiisa in lagu badbaadayo wixii kale lagu halaagsamayo taas waa asaasi intii aad ku dhaqmi karto nabiga sal allahu alayh wasalam sunnadiisana inuu ku dadaalo qofku xadiiska nabiga sal alla alay slam inuu barto oo uu ku dadaalo
inuu ku dhaqmo oo uu ku dadaalo iyaduna markaa kitaabkii oo kale weeyaan axaadiista sharciga nabiga sala allahu alay wasalam in la barto waa arrin waajib ah qofkana la doonayo inuu u hagar baxo walia'imati almuslimiin saddexdaa hore culimmadu waxay yidhaahdeen kitaabka allah subxaanahu wa tacaala iyo kitaabka iyo rasuulka u nasiixay marka lagu leeyahay nasiixadaas faa'iidadeedu adiga unbay kuu soo laabanaysaa xuquuqda ilaahay uu kugu leeyahay inaad gudato adiga unbay ku anfacaysaa ilahay waxba ka gaari maaya adugu inaad ilaahay caabuddo inaadan caabudin ilahay waa isugu mid isaga waxba uga siyaadi maayaan faa'iidada adiga ayaa leh kitaabka ilaahay inaad u hagar baxdo adigay ku anfacaysaa nabiga sala allahu alay wasalam xuquuqdiisii inaad si fiican u gudato adigay ku anfacaysaa iyaga waxba ka halaabi maayaan labadan dambena a'imatu lmuslimiin iyo caamatihim waa isdhaafsi adigana way ku anfacaysaa iyagana way anfacaysaa nasiixadu muslimiinta madaxdooda in loo nasiixeeyo macnaheedu waa maxay inaan la khayaanin inaan laga daba wareegin in maaragtay fasaad iyo musuq maasuq iyo laaluush iyo aan laga daba wadin iyagana laga celiyo inta ka hoos shaqaysana laga celiyo qof walbana waajibkiisii uu guto inuusan khiyaanin dadka la yidhahdo khaa'inulwatan weeyaan khaa'inulwatan intuusan noqon khaa'inu sharci weeyaan islaamkii buuba khiyaan islaamka ayaa ammaanada dadka faray islaamka ayaa laa iimaana liman laa amaanata lahu nabigaa yidhi sal allahu alay wasalam qofka aan ammaano lahayn oo khiyaanadiisa aamin aan laga ahayn iimaan ma laha marka waa iimaan la-aan a'imatu lmuslimiin marka waa in loo nasiixeeyo oo kuwa la shaqaynaya u nasiixeeyaan adiga laftirkaaga shacabka dad ka midta inaad u nasiixayso sideed ugu nasiixaynaysaa wanaaggii sidii uu u samayn lahaa waa inaad ku garab siiso oo shacabku bulshadu hadday qabiil yihiin hadday kooxa yihiin hadday qof yihiin hadday ganacsato yihiin nooc walba bulshadu ay tahay waa inay isu kaalmaystaan dhammaantood waddadii wanaagga ahayd madaxdu way ku qasbananaysaa markaas dadka inay raacaan dadku hadday wanaag isku raacaan madaxdu ma qasbi karaan inta badana dadku siday yihiin ayay madaxdu noqotaa wakadalika nuwallii bacda adaalimiina bacdan bimaa kaanuu yagsibuun buu ilahay leeyahy daalimiinta qaarkood baan qaar kale madax uga dhignaa xaakim daalima haddaad aragto dadkaa dulmilowyaal ah dadka ayaa daalimiin ah hadduu xaakimku daalim yahay sida asalka saas weeyaan marka in loo nasiixeeyo wanaaggii lala jeclaado xumaantii lagala fogaado ee wixii ka maqan la tuso oo la yihahdo meeshaan baad ceeb ku leedahay meeshaan baa wax ka dhimay meeshaan baa nuqsaan ah halkaas waa inaad xoojiso wixii xumaan ahna waa in laga celiya aan loo horseedin laakiin haddii ay noqoto xumaanta in loo horseedo dulmigii loo horseedo cadaalad darradii loo horseedo haddana la rabo in waddankii uu hagaago oo dowladnimo wanaagsan la helo ma suurtogelayso waxaa ka horeysa taa nasiixa in la helo xuquuqda dadka ay ku leeyihiin dadku waa inay ka soo baxaan xuquuqda lagu leeyahay shacabku waa inay ka soo baxaan muslimiinta guud ahaanna inaad u nasiixayso qof walba oo muslima annusxu likulli muslim baa la doonaya qof walba oo muslim ah inaad u nasiixayso mid qaraaba ha noqdo ama yuusan noqon midaad garanayso ama saaxiib ama wax lamid a ha noqdo ama yuusan noqon qof walba oo muslima inaad u nasiixayso waa maxay xuquuqda uu kugu leeyahay ee islaamnimo uu kugu leeyahay ama derisnimo uu kugu leeyahay ama qaraabanimo uu kugu leeyahay waa inaad ka soo baxdo xuquuqdii islaamka u horeysa innaguna inta badan waxaan badayacnaa waa xuquuqda islaamka weeyaan allah subxaana wa tacala wuxu uhi inama almu'minuuna ikhwa nabigana sal allahu alay wasalam almuslimu akhu lmuslim waan soo marnay wayna noo imaan doontaa wax badan baa sheekha uu shikeeni doonaa axaadiis tusinaysa xuquuqda ay isku leeyihiin dadka muslimiinta taas in la ilaaliyo weya nasiixada la sheegayo qofkan waajibkii uu kugu lahaa horta waa inaad ka soo baxdo waajibaadkii kaa saarnaa waa inaad ka soo baxdo marka labaad intii aad wanaag u samayn karto waa inaad u samayso oo aadan waxba ka hakran waxba inaadan ka hakran ayaa loola jeeda nasiixada marka diinka qofku sidiisaba nasiixo weyn qofka diinkiisu wuxuu la egyahay waajibkii lagu lahaa xuquuqdii lagu lahaa inta uu ka guto addiinu nasiixatu diinku nasiixo weeyaan qulnaa waxaan ihi liman yuu u yahay qaala wuxuu lilaahi allah buu u yahay walikitaabihi kitaabkiisu u yahay walirasuulihi rasuulkiisu u yahay walia'imati lmuslimiin muslimiinta madaxdooda ayuu u yahay wacaamatihim guud ahaantood buu u yahay rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey درسي ورالكا نوجو والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين